tahay socdaalow annaga waxaa waaye youtube-ka ka daawanaa tiktok-ka ka daawanaa noloshaada lama socono bal ma single baa tahay mase xaasla baa tahay naga dabageey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنال كان نقدر وني سوا موسى إسماعيل وحاب بلابي دونا ما أنت برنامج اللي يهدو لا هذا الشخص قاعن كه وحاكو عصوما لو وقف وكلا أطورها صعداء لي أتريش ذا أمل عدي سود دوال ودون هاي ما شاء الله أذوين وندونا بقولك بقول وأنا كفر حسنا قاب طبعا وأن هل كانوا وعزوا منا ما شاء الله بقول وحير هذا برنامج كأيدي تطابطو تاجيرياشينا إن صوا عايو قفك بوحو حقه ليها إنه إذا ميدي لبس سؤال ديار وقتينا جوابتي ديار يا ماما بقولك بقول وأنا كم تصيبه السلام عليكم سودو ولا سودو كسودو برنامج كلا هذا الشخص عنك يعني صباح كاتشليو سعودال وافديان برادر لبس سؤال oo waxaad weydiin kartaa oo aad xaq u leedahay way kaaga jawaabayaan diyaar ayuu yihiin maxaa su'aal u qabtaa صاحب هاي حاجة حتى برنامج كفرين شادو تيكو سوق النيام فيسبوك عطمير بلد كان هيك صوت داولا hadhow ayaa youtube kala soo gelinaya la soo editing gareynaya kadib la soo gelinaya صاحب ياش وديني horta magacaygu waa tagtay abdisi waxa jooga Soomaaliland baa jooga su'aasha weydiinayo socdaal iyo kaachal waxa weeye waa ku maqlaan ku soo kaachal iyo socdaal xiriirka ay baa ka dhaxeeya dadka social media kulanka community kana hadaan xiriirka arinta inaga soo jaariyaan bandoonaya okay diyaar ayuu yihiin socdaal ayaa kaaga jawaabi doono marka socdaal waad ku mahadsan tahay wicitaankaaga sidaad noo taageeraysana waan kaga mahadcelinaynaa annagoo isku duuban anigoo ku hadlayo afka amaal iyo socdaal ayagoo isku duuban anigii amaal wax xiriir nagama dhaxeeyo waxa naga dhaxeeyo oo wada shaqayn iyo in aan wax wada qabsano iyo in aan ummadan ka qoslino aan taageero buuxo ku yeelano shacabka Soomaaliyeed dhaxdooda okay waa maasantaa brother su'aasha labaad soo deey صاحب وما سنتهاي جوابتي سؤال labaad weeye kaachal weydiin lahaa yada iyo socdaal xaq isku barteen meesha ay yani ka barteen oo inay yani isku soo baxayaan cid isu keentay soo hadda markuu socdaal keligii ahaa TikTok muu kala marka shada weynay kaachal weelay wuu kala kacday marka weydiin lahaa yaa kula taliyay oo socdaal yiraahday gabadha kaachal dhaaso okay yaa kula taliyay kaajalay waxa uu la taliyay wiil walaalkay ah oo diris aan nahay wiilkan isa ay keenay wiilkan aan aqoon uma lahayn inta bartan aad oo mahasana waayo wax badan fikrado badan oo iga maqnay ayaan ka faa'iideystay okay waa mahadsantahay waa kaya brother waa ku mahadsantahay ka soo qayb galashay barnaamijka la hadal shakhsiga caanka ah labada su'aal aan qabto waa lagaga jawaabay brother waa mahadsantahay 100% dadka kala jaanisiyeenaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعاقي ماشي جوكت magacay waa Amiira waxaan joogaa Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa walaal barnaamijka la hadal shakhsiga caanka maanta waxa ku casuuman socdaal iyo amal maxaa su'aal oo qabtaa oo weydiinaysaa labadooda laba su'aal xaq u leedahay su'aal horta waxaan weydiinayaa dad walaalaha timsa asxaab ayati dad walaalaha timsa asxaabati socdaal kaaga jawaabi doono waxaynu nahay aniga iyo amaal dad isbartay isdhaxgalay ku heshiiyay inay wax wada qabsadaan asxaab ah iska soo socdo dadka kale okay waxaan rajaynayaa walaal inaad ku qanacday jawaabtaada su'aasha labaad soo daay su'aal labaad dib u qabo laakiin waxaan ahay taageerayaashiin waxaan leeyahay hore socda amaal iyo adiga masha Allah waxaan barasho weyn yahay inaan barto maanta ما شاء الله waa maasantaa walaal qaali
inta qofood aa aragteen ee su-aalaha soo weydiiyeen labadan qof amal iyo socdaal oo looga soo jawaabay waxay nasiib u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka la hadal shakhsiga caanka ah. barnaamijkan qof walba dad badanaa lagu casuumi doonaa, qof walba lagu casuumana markii su-aalihiis usoo dhammaadaan xoogaa anaa 2 xaba leh ma fahantiin. marka labadeeda xabaa gashanaynaa. socdaal ku bilaabi doonaa. socdaal soo dhow. waan ku maqlaa walaal, waan dhowahay boqolkiiba boqol aad u weyn. okay, su-aasheeda waxay ku leedahay horta intaa su-aasheeda guda gelin barnaamijkan ka waran. barnaamijkan maasha allah waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol. waa fursad maasha allah boqolkiiba boqol ay u baahan yihiin bulshada. maxaa yeelay bulshada waxay daawadaan social mediaha, waxay arkaan muuqaalo ay soo sameeyaan dad ay arkaan, lama hadlayaan oo muuqaalka qofkan wuxuu soo sameeyay oo soo editing gareeyay oo ka soo shaqeeyay ayaa daawanaysaa. adiguna qofkaas ma hadli kartid, hal meel ku furan oo kaliya commentiga inaad fariinaad ugu qorto ha ku soo jawaabo ama aysan ku soo jawaabin. laakiin hadeertaan way ka duwan tahay oo wuxuu isbedeleen soo maaha. fursadani waxaan leeyahay waa fursad loo abuuray macnaha isticmaalayaasha isticmaalo baraha bulshada inay la hadlaan, macnaha dadka ay taageeraan. matalan adii qof haddii aad taageerto aadan weliga aadan la hadlin, maanta haddii social media inta la soo fariisiyo lagu yiraahdo qofka aad taageerto oo taageeraha aad u tahay ayaa halkan fadhiyo la hadal, waa fursad qaaliya. waxaan dhihi lahaa maasha allah boqolkiiba boqol Muuse Ismaaciil waxaan leeyahay keep going baan leeyahay, waanu kaga mahadcelinayaa fursadan aad u abuurtay shacabka Soomaaliyeed. okay, amal adigana sidoo kula yahay barnaamijka? sida uu jira barnaamijka aad ayuu wanaagsan yahay. ana xataa aad u dhiirigelina waa inta badan shacabka inay taageeraan, inta badan inta jidadka istaagay waxaa ka wanaagsan inay meeshan kala soo xiriiraan. sidaan si fiican baa sii wada doona dad badan oo ninka oo jeceshihiin ayaa sii arki doontiin ama meeshan ka daawo doontiin. marka waxaan leeyahay walaalayaasheeda hore u socda, marnaba dib u dhicinaha. okay, su-aasha kale su-aasha weydiinaya socdaal oo ku bilaabaya waxay tahay socdaalow annaga waxaa waaye youtube-ka ka daawanaa, tiktok ka daawanaa, noloshaada lama socono, bal ma single baa tahay mase xaasla baa tahay? naga dabageey. waad mahadsantaha boqolkiiba boqol Muuse. su-aashan ay weydiisay waxay tahay ma single baa tahay mise xaasle? okay, single maata mase xaasle su-aasha haddii ay noqoto aniga just hadda la taagan yahay waxaan aan xaasle, nin xaasle oo xaas qabo oo reer iyo family leh, shaqaysto, haddana macnaha social mediaha dadka madadaali kana qosliyo, halkaana fadhi aad adiga hor taagan tahay. okay, su-aasha kale amaal weydiinaya waxay tahay iyadana isla su-aashan oo ah ma xaaslaa tahay oo waa lagu qabaa toora iska jiro mise waxaa waaye banaanka cad taagan tahay? ani walaal waxaan ku leeyahay xaasle ma ihi, laakiin waxaan ahay qof jecel leh. xiriir micnaha? xiriir ayaan leeyahay, laakiin weli xaas ma noqon. waxaan rajeynayaa inaan noqdo. okay, su-aasha waxaa waaye hal maruusa hal kala dhiman. marka socdaal xoogaa maxaa jeceshahay ya markii la yiraahdo dhanka cuntada? cuntada aniga waxaan u jeclahay muufada ayaan u jeclahay masha allah. ayada ayaan u jeclahay muufada. weliba waxaan u jeclahay laba nooc, nooca tinaarka iyo waxaan jeclahay nooca lagu dubo birta muufa bireed mid loo yaqaan labadaba. okay, dhanka kale cuntada ay nooc jeceshahay? cuntada noocan jeclaha cuntada noocan jecel waxaa malaayga oo kaliya aan jeclahay. cunto dhan malaay la ugu jeceshahay? malaay kaliya dambi. waayo inta kale raashinka waxba ilama aha, waa raashinka malaayga aad ugu jeclahay. okay, barnaamijkan maanta waa bilaaw oo waxaa lagu bilaabay atooraha iyo atariishada kaliya aan ka qabno Soomaaliya. dad kaloo caana barnaamijkan waa lagu casuumi doonaa. barnaamijkan magaciisa waa sida aan idiin sheegay waxaa la yiraahdaa la hadal shakhsiga caanka ah.
marka waa maasantiin waa ku maastada daawashada muuqaalkan aad daawato waxayno balana fiidiyoga xiga bye bye